bulshaweynta ku dhaqan degmada Sheekha gobolka Saaxil ayaa maanta banaanbax ballaaran ku muujiyay taageerada buuxda oo hayaan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan aaga jiida hore ee Soomaaliland waxaana kala soo qayb galay banaanbixii bulshaweynta ku dhaqan degmada Sheekha gobolka Saaxil xildhibaano mas'uuliyiin iyo madaxda kala duwan ee degmada Sheekha gobolka Saaxil waxaana halkaasi khudbada uga jeediyay bulshada isugu soo baxday banaanbaxaasi qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Sheekh mas'uuliyiin iyo maamulka degmada Sheekh oo isku duuban waxaanay hoosta ka xariiqeen dhamaantoodba inay hil iyo hoob la garab istaagi doonaan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waa maalin aynu shucuurteena iyo dareenkeena ku muujinayno isla markaana ku taageerayno ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa maalin aynu geesiyaasha qaranka ugu hambalyeynayno uguna bogaadinayno inay difaaca qaranka adkeeyaan waa maalin aynu muujinayno inaynu garab taaganahay ciidamada qaranka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee furimaha hore dagaalka ku jira waxaynu aad ugu bogaadinaynaa muddadii 32 sano ahayd ciidamada qaranku maalin walba talaabay qaadayeen goob bay ka dhaqaaqayeen meel la way gaadhayeen maantana waxay joogaan ciidoodii iyo calankoodii iyo dhulkoodii shalayna waxay joogeen dhulkoodii iyo ciidoodii birina waxay joogi doonaan ciidoodii iyo dhulkooda meel taaka ka mid ah dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ciidanka qaranku salaabo kasta oo ay ku gaadhaanba ay ka maqnaan doonaan ma jirto waxaan ku bogaadinaynaa oo aan leenahay shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaanba way idinku garab taagan yihiin ma jiri doonto deegaan iyo dad laga guuleysta ee waxa jiri doona Soomaaliland oo gacmaha haysto wada guuleysta ayna dareenkeena ku wajahan isbarbartaaga ciidanka qaranka Soomaaliland ee ay ku dhaceen duulimaadyada gaadmada iyagoon laga guuleysan jirin kuna filaad difaaca qarannimo ayaynu dhammaan hadaynu nahay shicibka Soomaaliland ku barbartaagnaan doona nafiya maal muruqiya laxaadba waxa weeye inagu ku hadli mayno hadal caadifadaysan ama itaabanaya Soomaaliland waa mid gobolka Sool waa halbowlaha Soomaaliland dadkeennii baa jooga waa dhulkeennii ilaahay ka sakow inaga iskale waynu difaacanaynaa ciidanka qaranka والله شكي إنه صاحب دانو حدود Soomaaliland سوى فقسم دستورك. بحنا يمان تديكلاريشن وحن كباقيا لمان عيدمدي SNM حرية ودنكا هؤدي يرجروبين دبو حرين دمبه هؤدي يرجروبين دفاع دمبه هؤدي يرجروبين إنا نفتو دمبر صدحات يمر أفراد أي أهران للكودة دكودة دلكودة يدين تودة الله أكبر الله أكبر الله أكبر فرينتا كسو عتدد وينها دقمدا شيخو دقان هل قضوم باندرينسينيا مددي 8 بلود ee dagaalku socday runtii ka cisbitaalhaan culays baan haystay waxaan noo imanay ciidankii qaranka oo nooc kasta isku jira oo garab iyo gaashaan baan ahayn wareer shiiqow intaad gacmaha isqabsataan war ciidankiina ka jiida jooga iyo ka xirada ku jira ila tababarayo iyo ka inala joogaba war gacmaha aynu qabsanno oo wixii karaankeenna ay torno war ciidanku inuu ku dhex silcin haday raashiqnahay talabaadna waxaan leeyahay qaranka oo dhan Soomaaliland way guuleysanaysaa hadii la yiraahdo gacmaha la isqabsanaya runtii qaranku wuxuu ku soo gaaray halka gacmaha is wada qabsi in wax la wada yeesho maantana waxa weeyaan mucaarid iyo muxaafidba gacmaha aynu isqabsanayna akbar ciidanka Soomaaliland aad baan u salaamayaa ciidanka Soomaaliland ilaahay waxaan uga barayaa guul iyo gabanimo halkan waxaan ka salaamayaa maayarka Ismaaciil baan ka salaamayaa ee soo qorsheeyay hawshan aynu ku jirno maanta dabaaldegi mayno waxaynu iska rab taagaynaa ciidankeena qaranka waxaynu dabaaldegaynaa maalintaynu guuleysano oo waxba inaga xigin Soomaaliya waxaan u sheegayaa ma haysanayso jawaab degdeg aan ka bixin doonaa insha Allah dawladda shicibka jawaab degdeg aynu ka bixinaynaa waana arki doontaan
annagu haddaannu nahay golaha deegaanka iyo odayaasha dhaqanka 4 habeen iyo 4 maalmood maannaan jiifsan dhammaan tuulooyinka degmadu kugu xeeran tahay waannu ku soo wareegnay xoolo waxay hayeen waannu ka soo diyaargaraynay waxaannu ka soo diyaargaraynay 780 neef oo adhi ah iyo 31 awr oo geela haweenka degmaduna may jiifsan intaa waxa alla wixii ay hayeen hadday busta tahay iyo hadday god tahay iyo hadday lacag hay tahay iyana xalay bay soo diyaargareeyeen waxaynu tagaynaa haddii alla ka dhigo oo aynu jiida hore tagaynaa oo annagu golaha iyagan deegaankaannu dhammaan tagaynaa haddii alla ka dhigo maalinta arbacada oo aynu geynayno alaabtaa iyo arrintaa ilaa aynu guushaa gaadhayna kama iman mayno halkan waxaa ammaan iyo gobonnimo mudan beelweynta habar jeclo oo soo gebagabeeyey khilaafaadkii dhexdeenna soo gebagabeeyey halkaana cidda qudha ee dhibtaasi ku dhacday ee ugu badan ay tahay beelweynta habar jeclo waxaannu leenahay ilaa iyo intii hawshaa galeen waxaa ka muuqanaysa lalahaa waa bariga burco maaha meesha beelha kaga dhicina sool bay degaan cerigaabay degaan saaxil bay degaan burcay degaan adeer beesha bariga burco ka daayo oo beesha beelha kaga dhicinaan leeyahay insha allah gobollada oo dhan bay degaan waana lafdhabarta somalilan weeye waa lafdhabarta somalilan waxaan leeyahay insha allah waynu guulaysanaynaa guul waxaan halkan ka salaamayaa maamulka degmada sheekh iyo mudanayaasha iyo marwooyinka xafladdan qiimaha iyo qaayaha leh ee kalgacalka walaalnimada kalsoonida sharafta iyo karaamada leh muujiyey ee halkan isugu yimi ee shucuurtooda ku muujiyey kuna taageeraya ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaan idinku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koowaad waxaan jecelahay inaan aad u bogaadiyo ugana mahad celiyo sida quruxda badan ee dhiiranaanshaha leh ee saaka halkan aynu isugu nimi ugu dulqaadannay cadceedda una muujinnay inaynu ciidankeenna qaranka isu barbar taagno waxaanaan soo jeedinayaa leeyahayna ciidankeenna qaranka inaynu taageerno intanaynu maanta halkan ugu taaganay baa ugu yar ciidankeenna qaranka inaynu taageero u muujinno isbarbar taagno intanaynu maanta halkan ku joogno ayaa ugu yar intan iyo in ka badanba way naga mudan yihiin ciidanka qaranka ma aha runtii inaynu sacab iyo mashxarad keliya ku soo dhowayno ama isku garbar taagno waxaynu u baahannahay siday naftooda inoogu hureen ee 32 sano halkaa u taagnaayeen innaguna inaynu ka badan taagno waxaynu u baahannahay moraal inaynu u muujinno oo isku barbar taagno waxaynu u baahannahay inaynu dhiiri gelinno waxaynu u baahannahay in xoog iyo xoolo wixii aynu ku taageerayno isku barbar taagno sida xildhibaankii iga horreeyey sheegay degmadu 32 tuulo ay ka kooban tahayba waxay maanta diyaar u yihiin kuna hawlan yihiin sidii ciidankooda qaranka ay isku barbar taagi lahaayeen hawshooduna way socotaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan mar labaad doonayaa inaan hoosta ka xariiqno ama aynu muujinno bulsho ay nagula nool degmada ka soo jeeda gobollada sool iyo gobollo kale oo Soomaaliya ka midaba innagu Somaliland baynu nahay gobonnimo gaar ah iyo dabeecado gaar ah laynagu yaqaanaa waxaynu u baahanay inaanay dareemin bulshada reer Somaliland ee ka soo jeeda gobolka sool iyo bulshooyinka kaleba in qadiyadda Somaliland laga leeyahay taasina waa tii aynu lahayn caadooyinka u lahayn waxaan iyadana jecelahay maanta inaan bartanka xuso waxaynu arkaynay maalmo dhaweyd iyadoo dhaqankeennii salaadiintii ugu sarreeyay ay dareyska xidhaan lama gaadhin xilligii ay dhaqankeennu dareyska xidhan lahaayeen waxa joogta dhalinyaro iyadu diyaar u ah inay beddesho dhalinyarta halkaa joogta ciidankeenna qaranka ah
maalinta la waayo nin dhalinyaro ah oo qoriga tuurta saara oo xuduudiisa difaaca suldaanku iyo halka dhaqanka inoogu sarreeya xidha dareyska laakiin maanta waxaynu leenahay saddexda duub kaleba xagga dambaha inoo joogaan waayo waa marjici loo noqonayo weey maanta inaga diyaar u ah xuduudeena inaynu difaacno dhalinyar baa u joogta 40 jiraa meel walba taagan oo diyaara oo wiiga soo socda iska xaadirinaya gooja cadeeyo og hadii la haydhaahdo laakiin waxaan leenahay dhaqan oo marjici baa tiina halka loo jooga waxaan inta ku biirinayaa waxaynu u baahanahay inaynu hadii la haydhaahdo anagu ka maamulahaan marka taageerada bulshadeena reer Sheekh ay u muujinayso ciidanka soo dhamaato ee ay waqtigeeda gaadho annagoo idinka idin metelayna hadii la haydhaahdo waxaan iska xaadirnaynaa jiida annaga iyo wixii aanu sidnaaba annagoo idinka idinku metelayna hadii la haydhaahdo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Somala hanolaato calankaas ha jiro Somala ha jirto cadawgooda ha jabo runtii bulshada reer Sheekh aad iyo aad baan u salaamayaa waxay muujiyeen taageerada buuxda ee ay la garab taagan yihiin ciidankooda Soomaaliland waddan kasta wuxuu ku faanaa ama uu ku jiraa waa ciidamadiisa astaantiisu waa ciidamadiisa innaga astaanta Soomaaliland waa calankeena astaanta koowaad ee midaysa waa calankeena astaanta labaadna waa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala gadisan runtii maanta waxaanu barbar taaganahay ciidankeena waxaanu barbar taaganahay oo aan diyaar u nahay dhammaanteen inaan xuduud iyo xoog iyo xoolaba inaan diyaar u noqonno inaan isgarab taagno ciidamadeena jiida jooga ee mataqaanaaye difaaca qaranka ah ee aanu ku naadanno ee aynu ku joogno ee aynu ku jiifno waa iyagaynu wax ku nahay iyagaanu sharaf ku leenahay iyagaanu cisi ku leenahay la'aantoodna Soomaaliland ma jirteen waxa la idiga baqayaa oo cadawgu nagu soo dhici laayahay waa ciidamadeena haddana ciidamadaasi jirinna Soomaaliland ma jirteen hadday jirtana saaytay maanta ma ahateen waxaynu ku faannaa oo dhiigeenoo dham uu yahay waa ciidanka qaranka qalbigeenu wuxuu la jiraa ciidamada qaranka hooyo kasta iyo qaangaal kasta iyo gaashaanqaad kastaba waxa laga doonayaa inuu mataqaanaaye qalbigiisu uu joogo furimaha dagaalka halkan lagu dagaalamayaa waa Soomaaliland isma hayno gobolka Sool reer Sool iyo Soomaaliland isma hayaan reer Sool waa Soomaaliland waxaan haynaa cadow shisheeye oo isku bahaystay afqabiil isku bahaystay arrimo kale isku bahaystay siyaasad kale isku bahaystay inay iftiinka Soomaaliland baabiyaan isku bahaystay inay shamacaad dumiyaan laakiin ilaahay kama yeelo intaynu garbays haysano ee aynu midnahay ciidankeena inaga waxba la yeeli maayo laakiin maalinta dhexdeena la geliyo tafaraaruq maalinta dhexdeena la geliyo mataqaanaaye qabyaalad maalinta dhexdeena la geliyo mataqaanaaye burbur maalinta dhexdeena la geliyo kala qaybsanaan waa maalintuu ciidanku jabayo waa maalinta Soomaaliland burburayso intaynu midnimadeennu iyo walaadnimadeennu ay jirto ciidankeenu waa jiraya ciidannu way jiraysaa calankeenu waa jiraya waa Maxamed Ali Ahmed Maxamed Kaabe telefishinka caalamiga ee Bulsha TV degmada Sheekh